يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن أصحابتا مركلة موضوع ما أنت وحن كسو قادنا فإذا بصشة يعذر هذا كانسر كأي كهرتكتو. جودهان استعمالك خضارتا كلا دوان وحال الرميسية هي إنه هوسو لجان خطرها عافماد ترى بدن الحريرة isbedelada nolosha sababa xaaladaha saameeya caafimaadka aadamaha. Cilmi baarisyo badan ayaa cadeeyay isticmaalka badan ee cunnada dhirta inay badankoodu yareeyaan xanuunada xilligan adduunka ku soo badanaya ee daawada lahayn. Muuqaalkan waxaynu si kooban ugu eegi doonaa faa'iidada ay caafimaadka bini'aadamka u leedahay basasha oo ah khudaarta daruuriyaadka ee aadamuhu isticmaalo maalin kasta. basasha ayaa ah il ka mid ah waxyaabaha xoojiya maadada antioxidant iyo vitamin C-ga kuwaas oo la dagaalama waxyaabaha aan inta badan la aqoonsan ee keena cudurka kansarka mindhicrada. guud ahaan helitaanka uu jirku ka helo khudaarta noocyadeeda kala duwan maadada fiberka waxay hoos u dhigtaa khatarta cudurka kansarka noociisa ku dhaca mindhicrada. kansarka qanjirka daraasad lagu daabacay majalada The National Cancer ayay cilmi baarayaashu isticmaaleen dad tiro badan kuwaasi oo ay ku baareen xiriirka ka dhaxeeya isticmaalka khudaarta basasha iyo kansarka ku dhaca qanjirka. waxay heleen khubaradaasi in qofka isticmaala xaddi badan oo basal ah ay ka badbaadaan halista cudurka kansarka ee haleela qanjirada. kansarka ku dhaca cunaha iyo caloosha si joogto ah oo qofku uu isticmaalo basasha waxay si toos ah uga hortagtaa khatarta cudurka kansarka ah ee ku dhaca cunaha iyo caloosha. hurdada iyo deganaanta maskaxda maadada folate oo ay qani ku tahay basashu waxay dejisaa isku buuqa iyadoo ka hortagtaa isla markaana kantaroosha xaddiga jirka maadada homocysteine taasoo ka hortag fiican u noqota inuu kaco dhiigga iyo waxyaabaha kale ee maskaxda saameeya. maadada homocysteine oo jirka ku badata waxay saameysaa in hormoonada dhiigga ay si fiican u shaqeeyaan taasoo qofka dhaxal siisa in aanu xaalad ahaan deganaanin isla markaana ay yaraadaan hurdada iyo abateedkuba. maqaarka sare ee jirka iyo timaha dubka sare iyo timaha waxay u baahan yihiin inuu jirku helo vitamin C ku filan si uu u dhismo isla markaana daryeel fiican u helaan maqaarka sare ee jirka iyo timuhu. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan aad gabagabadiisa soo gaarteen. waxaan idinka rajeynayaa inaad nagu caawin doontaan subscribe-ta, like, share iyo comment-na aadba sii raacan doontaan insha Allah. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo kulan dambe oo xiiso leh. في اشتهاء الحياة وأني للذاتها